dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay kulankani aad baad muxuu ahaayay u salaamantihiin waxaan ilaahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kullay mawduuca waxa aad u qaada dhigay saaxiibkay iga horeeyay oo muxuu ahaa runtii si wanaagsan oo historical perspectives iyo siday muxuu ahaayay kalaam politicization ku bilaabmay ama moogtayn qabiilka la muxuu ahaayay la siyaasadeeyo oo moogtay u dhaqankii iyo nidaamkii uu ka fogaado loogu talagalay soo jiraanka ah inuu ku dhaqmi jiray muxuu ahaayay waxay noo soo qaada dhigay oo nooga hadlay Xasan Halas marka anigu kullay wax yar baan ku beerin doonaa oo aan moogtahay dhinaca muxuu ahaayay aan oran karo muxuu ahaayay waxaan u qaybinay runtii mawduuca kalanism oo aan moogtahay runtii aan wadi muxuu ahaayay tolnimo and tribalism dadku inay kala fahmaan waxa tolnimadu ay tahay iyo waxa ay qabyaaladu tahay waxa asalkee aan laga guureynay soo jireenkee dhalashada ah iyo waxa dhaqankee ama fool xumeyn kara ama wanaajin kara taa inaan kala saaro marka aanu kulli waxaan qaybtaydu noqon doontaa conceptual understanding dhinaca moogtahay inaan fikriyan fahamno muxuu yahay qabiilka iyo qabyaaladu maxay ku kala duwan yihiin ama tolnimada iyo muxuu ahay qabyaaladu maxay ku kala duwan yihiin dabcan qaybta dambeena waxa ka hadlay walaal muxuu ahaa saaxiibkay oo kalaam politicization historical perspective aha marka hadaan qaybtan soo laabto muxuu ahay waxay noqonaysaa tolnimo iyo tribalism dabcan muxuu ahay labada moogtay arintani way wax badan waxba iskaga moogto laga yaabaa inay moogtahay qaybo badan oo muxuu ahay isbarbar dhigi kara ay jiraan oo waxa la isbarbar dhigi karaa tribe iyo tribalism wala muxuu ahay waa iska soo horjeedaan tribe-kuna waa wax jira qabiilka qabyaaladuna waa wax ka duwan weeye clan iyo clanish ama clanism iyada lafteeduna waa arin muxuu ahay iska soo moogtahay laba fikrado laba kala duwan weeye sida race iyo racism ay u kala duwan yihiin moogtahay in qofku race uu ka soo jeeda qowmiyad buu ka soo jeedi karaa Afrikaan ha noqdo ama Asian ha noqdo Arab ha noqdo ama moogtahay midab macaan ha noqdo ama moogtahay muxuu ahaayay inda blue ha lahaado ama ball ha ahaado moogtahay muxuu ahaayay timiisu ha ka duwanaadaan dadku races moogtahay way kala duwanaan karaan ama inda yar ha ahaado ama hindi ha ahaado waa qowmiyado kala duwan weeye laakiin taas waa sidii Ilaahay u abuuray nina choice-keeda ma leh laakiin waxa mushkiladu noqon doontaa marka muxuu ahaayay arintu racism noqoto oo ilaado qowmiyadeyda ka sareysa inta kale ama muxuu ahaayay midabka cad baa ka sareeya midabka muxuu ahaayay madow marka arintu nooca noqoto ayay fool xumaanaysaa laakiin marka cid walba sideeda lagu ixtiraamo sidii Ilaahay u dhaliyay maxaa yeelay isagu ma uusan dooranay waxa weeye sharaftiisa iyo qiimihiisa buu lahaanaya sidaas la mid ah bay qabiilka iyo qabyaaladuna u kala duwan marka qabiil la yiraahdo qofku qabiil buu ka soo jeedi karaa aabihi isagu ma dooranin muxuu aaba moogtay dhalay uu ka soo jeeda laakiin muxuu marka arinta qabyaalad loo bedelo taasun baa markaas ay muxuu ay fool xumaanaysaa dhaqanka ayaa fool xumaynaya ma fiicnaynaya ma aha moogtay qofku wixii uu isagu dhalashadiisu ahayd waxba moogtay doorka ma laha runtii marka tribalism laga hadlayo ama qabyaalada laga hadlayo dabcan waa primitive form waa moogtay waa halkii ugu horeeyay bini aadamku moogtay uu ka soo bilaabay dabcan qoys kaliya hatuu bini aadamku siisa markiisii hore ahaa marka hadda waa inay isxiriiriyaan oo moogtay muxuu qoyskii ay markaasi muxuu ay isku xidhnaadaan oo duruufta khasbaysa had iyo jeer saasi markaasi waa qaabkii ugu horeeyay bini aadam isku xidhnaa inay moogtay dhalasho hadii wax kale aanay ku kala duwan yihiin aysan jirin inay dhalasho ahaan markaasi ay isku xiriiriyaan marka laakiin waa qaabka ugu hooseeya ee bini aadam uu markaasi isku xiriiriyo marka inta loo yahay ilbaxnimada bini aadamka hadii marka muxuu ahaayay marka qaybkaas marka ideology laga dhigo ayay markaasi fool xumaanaysaa laakiin definition ahaan waxa weeyaan simply muxuu ahaayay waa genealogical perspective waxa weeye waa inward identification of someone through an exclusive male based claim of assumed common ancestorship macna waxa weeye qofku inuu yiraahdo awow baanu wasku moogtay ka soo wada jeednaa oo midalan ama odagii moogtay dhowr iyo tobnaad labaatanaad soddonaad kontonaad boqolaad there's no difference inaad boqol ka dhigto inaad labaatan ka dhigto ama inaad soddon ka dhigto ama toban ka dhigto it is the same moogtay wax difference oo dhaxeeya ma jiro inaad odagaas moogtay la aaminsan yahay inay dadku ka soo tafiirmeen ama qoomkaasi ka yimiday una tiraahdo muxuu ahaayay kaasaan ku abtirsada oo moogtay isku raadsataani iyay noqonaysaa markaasi muxuu ahaayay inta kalena aad tiraahdo way naga duwan yihiin oo moogtay
وينجا دوين طبعا سومالي ودقن بيقول هاي لكن دقن كاسي عندنا وحبا خس بيجي موقتها سومالي واحد مدامر كي جي يعني دكتي دي قومية بدن بيمحوها هاي كو صوب محوها هاي لك صوب بيرتي قومية ده سو دين هان لقي يابا إنه كدونا عين بصورة جلا markaasi cadawguna u badnaa kala dhex gali karaay marka waxay noqotay in qofka identity-ga lagu garan karaa noqdo inuu abtirsado oo yiraahdo in hebel ayaa tahay marka halkii ay marka la isku yimaadee dadku ku soo muxuu ahay ay abtirsiinta isku timaado de marka la isku garan jiray marka qofkii identity bay u ahaydo mar haddaan qoraal kale jirin si kale oo la isku fahmaanay moogtay yar tahay waxa uu ahayd identity-ga kaliya haatee ay isku garan jireen laakiin marka taasi laga dhago moogtay la isku takooro ama reer hebel muxuu ahay reer hebel la isku qaybiyo taasi markaasi arrintu way fool xumaanaysaa marka halkan anu runtii waxaan aad uga yar hadli doonaa tribalism-ka iyo tolnimo dabcan ereyga tolnimo waa Soomaali ereyga tribalism-na waa muxuu English mukulay tolnimo English sideedaas macnaheedu inta badan kingship waa laga yaabaa in noqon karto laakiin haddana way ka qoto dheer tahay ereyga Soomaaliga muxuu ahaay ereyga marka English ama luqadda kale ama qabiil iyo qabyaalad markii Carabiga xitaa qabiil iyo moogtahay qabiila markii la yiraahdo Carabi markii lagu laabto way moogtahay way ka yar duwanaysaa ama cashiira ama casabiya waa laga yaabaa inay muxuu ahaay sida uu moogtahay Ibn Khaldun uu ku macneeyay inay casabiya iyo moogtahay xoogaa isu soo dhawaanayaan marka maxay tahay tribe-ka waa group of persons forming a community claiming descent from a common ancestor waa moogtay waa dabcan inta moogtay sida iyaga English-ku qoraan inta badan saas uma lagu qeexaa waxay noqon kartaa any various system of social organization comprehensive of local villages bands districts lineages or other groups sharing common ancestry language culture and name iyay noqon karaa marka qabiil laga hadlayo muxuu dad moogtay meel degaan wada degan muxuu ahay laga yaabaa inay moogtay dhaqan iyo moogtay af iyo wax walba wadaagaan aftirsiina wadaagaan magac moogtay ka dhaxeeyo ay wadaagaan uu jiro taas markaasi suuragala in muxuu ahay lagu macneeyo inta markaan dhaafin runtii marka muxuu ahay xagga imika marka waqtigan modernka la eego tribalism-ku waxa ma tribe-ku waxa ku hareenon meelaha uu state-ku aanu jirin ee moogtay aanu muxuu ahay aan ka jirin dawladnimadu aanay aad u gaadhin inta badan meelaha xuduudaha labada dal u dhaxaysa oo inta badan ay ku yar tahay moogtay awoodda dawladnimo ay daciifka ku noqoto oo moogtay ku koraa muxuu ahay balera qabiil waxa jira midalan mantiqada Pakistan iyo inta maqashaan hadii jeer meelahan ay dhibtu ka taagantay Pakistan iyo Afghanistan u dhaxaysa waa dhul iska cidla oo ay moogtay midna aanu maamulin waxa la yiraahdaa tribal area qabaa'il un bay iska degan qabaa'ilka cid kasta gali karta cidii dan lihiba marka way ku dhex dhuuman kartaa markaas waa dawladnimadii baa markaas ku daciifa marka markastoo ay dawladnimadu daciif noqoto qabiilka ayaa markaas xoog badan ay qabyaalada ayaa markaas xoog badanaysa maxaa yeelay dadku iyaga ay regrouping qaabkooda isku abaabulayo isku moogtay muxuu ahaa isku nidaaminaya inay muxuu ahaa maamul yeesho maxaa waa solidarity hadii jeer waa loo baahan yahay bini aadamku inuu moogtay isku ururo qaab uu isku ururo marka qaabkii wanaagsan ay ka saari lahaa ilbaxnimada iyo wanaag ku dhisnaa haduu waayo ma diin muxuu ahay ku moogtahay hagaajisa haduu waayo marka wax noqonaya inuu qaabkii isagu doortay marka uu duruuftiisa ku maareyn karo oo marka uu muxuu ahay isagu uu raadsado marka Ibn Khaldun wuxuu ku macneeyay arrimahan midalan tolnimo marka la eegayo arrinta tolnimada wuxuu ku macneeyay social cohesion casabiya ayuu ku macneeyay عصبية as a fundamental bond of human society and the basic motive force of history. يعني هو جري بكل عصبية عندك قاب كاس قوي مادان. أقول السيدو يسوي مركا قيمين ينا ونن اجتماعي وابن خلدون نن فيلسوفر وهو مقطع علوم الاجتماعية بني آدم كأدو دراسي بوها كتبتي سنة عيف فربضان وحاجة social sciences هي economics كبأدو وحيل دير وأمك حتى فلسفة دي سياد لو سوقات أيوها مركا وحولي necessary ما هبولي مقطع ضد كان محو عصبية سقوي ما نياي إنه blood relationship هنا أب كسوة تفيرمين it's not necessary هو من ضد ديجان وكده حيو محو هاي معمول كوجي سكو درصدي كدي من الدم وداع وهو محو هاي ساس هولو هو جيم مقطع سكو نظام صدي هم بمركز النقطة طبعا تاسوي سوتشري جرتي Soomaaliya أنا ميلا فربضن بي مقطع كجرتا هذه يشروي سوتشري جرتي مركز هذاني مكوسو لعبنا community relationship كا حرير كبلشو هذين محو هاي إنه جو مركز يكو قيمين إنه بلينا قبيلة دي هي قبيل كي كلا صاروا إنه جو مركز دين عاك إيجينا وحن مركز سو قاعدين كراس صدح الريموت صدح ذا الريموت هو حويه the lineage kinship of blood relations
blood relations ka dadkii xiriirka uu ka dhaxeeyay muxuu ahaayay dhiig uu ka dhaxeeyay dhiigu laba arrimood baa uu noqon karaa mid dhalasho muxuu ahaayay dadku ay abtirsiin iyo qoys wadaagaan uu noqon karaa wuxuuna noqon karaa mid muxuu ahaayay dadku ay tolnimo ka dhaxayso oo moogtahay hadan isku darsadeen oo dhiig wadaag yihiin isla dhiig baxaan necessary ma aha dadka isla dhiig baxaa inay dhalashana wadaagaan taasi Soomaaliya meelo fara badan oo ay ka jirtaa wana very common way in qofku muxuu ahaay uu la dhiig baxo intuu meel iska soo dago yiraahdo waan la dhiig baxaya diyadan wada baxsanaynaa tol baynu nahay tolnimo cusub markaasi oo by choice isagu ikhtiyaarkiisa ku doortay sidaas ku abuuranto waa wax jiri karo Soomaaliya geeska gees ee dhaqanka Soomaaliyeed kamid ah ayay ahayd marka ay qaabka diyada ay blood moogtay ama wada bixinta ama moogtay in muxuu ahaay xiriirka dhiig ee moogtay dadku dhalasho ahaan ay wadaagaan labada qaybood way jiri jirtay markaas oo kinship ay noqon kartaa markaasi xagga marka tol markii la eego runtii kelmadaasi tolnimada marka la eego ninku iyo tolkiisu waa kuma tolkiisu waa intii la diya baxday dhiigga la bixisa weeye cidii gurmad iyo gargaar baa ka helo weeye kaasun baa tolka u ahaa markaas hadduu cid kale ku darsaday iyo haddii intii dhalasho ay wada wadaageen ay moogtay u ahaadaba waxay ahaan jirtay uun moogtay tolnimadiisu waxay ku xidhnayd uun cidda dhiigga iyo markaas ay wada wadaagaan iyo muxuu ahaayay wixii dhib ay iska wada ilaaliyaan kaasun bay ahayn ee dhalasho kaliya necessarily kuma xidhnay sidaa ibn Khaldun ba sheegayo necessary ma ahayna dadku isku dhiig ahaayeen inay moogtay xiriir casabinimo oo moogtay tolnimo gargaar iyo gurmad uu ka dhaxeeyo ayuun bay ahayd marka labadaasi markaynu ka hadlayno de halkaasi hadii moogtay tolnimada asalkeeguba oo ahaa isbahaysi noocaas oo kale oo isla dhiig baxa oo ahaa de markaasi halka qabyaaladii muxuu asalkeegu ahaa in oday laga soo wada tafiirsamo oo tafiirta halka abtirsiinta la isku garto de marka halkaasi way ka baxaysaa halkaas way daciifinaysaa oo taasay dilaysaa in dadku intay isdoontaan ay intuu deegaankiisii bedelo oo meel kale u guuro oo moogtay ama daaqsin bari u tagay ama muxuu ahaayay uu arkay moogtay inuu nin moogtay suldaan wanaagsan oo cadaalad iyo meesha uu ka taliyo iska garab dago iska dugsado yiraahdo dhiigana waa la bixinaya saasa iska jamaa intuu gabadh ka guursado halka iska dagoba saasa iska dhici jirtay marka taasi hadii la yiraahdo un totally dadku qabiilku waa un moogtay abtirsiinta hebel ee moogtay diagonalka muxuu ahaa laynka kaliya taa xiriirsan uu kaliya noqdo markaas taasi way burburinaysaa markaas qaabka xitaa taariikhda xitaa beeninaysa oo ummadda Soomaaliyeed sidoo degan tahay hadii historically loo eego oo analysis lagu sameeyo taxonomy lagu sameeyo muxuu ahaa dhalashadoodii meeshii ka soo kala jeedaan wax badan baa muxuu ahaa iska bedelaya shaxda moogtay qabiilada markii la eego marka noocaas runtii waa mid jirta oo taariikhdaas beeninaysa intan dambe ee muxuu ahaa qabiilada foolxun soo baxday umba laga yaabaa affiliation ka dadku aanay bedelin oo ay moogtahay mid uu meeshiisii uu ku moogtay engagistay waa iska suuragal laakiin berigii hore de movement kaasi uu jiray bini aadamka ay Soomaalidu geeska gees moogtay ay iskaga talaabi jirtay way jirtay marka asaasay muxuu ahaa tolnimadu marka organization-ka ugu yar weeye ee markaas muxuu dadku isku muxuu ahaa yimaado ee uu moogtay diyada iyo moogtay uu ku wada bixiyo weeye waa unit-ka social unit-ka ugu yar ee solidarity-ga kaas weeye kaasun bay moogtay tolnimadu marka macnahaas ay sheegaysaa in dadku qaabka ay isku habaysan yihiin marka taa marka laga eegayo de qabiilkii uu ka baxaya markaas qabiilkii marka meeshaasi uu ku moogtay burburaya hadaynu hoos uga daadegnana oo nidhaahno moogtay intii blood relations ka dhaxeeyay qaraabada ahayd intii qaraabada ahayd ee dhashay lafteedii hadaan u nimaadno de hadaynu moogtay saarno muxuu ahay halbeega qabiilka hadaynu ku eegno de xitaa qaraabo isku noqon mayso qaraabadii is dhashay ee muxuu ahay qaraabo isku noqon mayso oo marka de hooyadii reer bay ka soo jeedaa abtiyaaladii reeray ka soo jeedaan reer mucaygii reer kale ka soo jeedaa ee marka hadii aan sidaa iraahdo de waxay noqonaysaa moogtay ama caruurtaydii cid baa moogtay reer abtiyo ah ee marka wax weeyaan de way lumaysaa tootay qaraabadii meesha way ku burburaysaa markaas qaraabanimada iyo qaabka la isku xiriirinayaan de waa tiirka ugu adag qoysku sidiisaba waa tiirka ugu adag ee bulsho weeye ee Ilaahayna adkeeyay weeye ee Ilaahayna faray inaan muxuu ahaay runtii la isxiriiriyo oo muxuu ahaayay sidaas dadku moogtay kii gooyaana uu yahay nin Ilaahay gooyay kii xiriiriyana uu yahay nin Ilaahay xiriiriyay waa tiir adag weeye marka hadii moogtay la yiraahdo adeerkaygii muxuu ahaayay ama ninkan isku nimaadno 15 isku abtirsano abtigay buu iga xigaa de wax weeyaan waa falxumo inteeda leeg weeye falxumo inteedii leego moogtay reality-ga qofkii uu moogtay iska moogtahay macnaha waa nacasnimo waa aqliga ugu hooseeyay weeye ee bini aadam gaaro buu noqonayaa markaas hadduu yiraahdo moogtay waxaan ta koorayay habaryartay fiiriga moogtay diintu u adkaysay waxa weeye inuu qofku inuu muxuu qofka ugu xaq badan bini aadam inaad xiriirisay waa kuma waa hooyada weeye Soomaa يا والنبي عليه الصلاة والسلام لو يديه يا إيجو حق بدن إن حريرية بني آدم كنول أرلادم كنول
ciday dooniba ha ahaatee dee wuxuu noqonayaa muxuu ahay hooyada Soomaa markaas uu haddana sumaman soo hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga bina mar afraadkiibu wuxuu yiri aabaha un baa markaas soo galiyo ku soo xiga bina 75% markii la eego dee dhinaca hooyada noqonaysa 75% only 25% baa markaas uu haraya muxuu ahay boqolkiiba 5 ayaa dhinacii aabaha u haraya taa waxa la mid ah markaas nabiga kaleey salaam yiri markaas al khalatu fi manzilati al um bina habariyartu waxay taagan tahay muxuu ahay booska hooyada habariyartu waa tii la dhalatay hooyada weey marka waxay taagan tahay booska hooyada adigoo analogy ku sameeynaya marka taaga qiyaas qaadanaya de abtiga uu ka xiga adeerka miinahay saasay noqonaysaa markaas bina abtiga uu kaaga dhow yahay markaas adeerka ay noqonaysaa marka diintu qiyaasta saasay sameynaysaa in muxuu ahaa la isku xiriiriyo oo markaas bini aadamku isku doonto muxuu ahaa la isku sama laakiin garasho uun in la isbarto oo moogtay qofku nasabkiisii u yaqaano oo de qof cid la ku dhashay aanu noqonin ee wahaado qof nasab ka soo jeeda ayuu abtirsiinta u qaatay oo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo nasabkiisa u ilaaliyo oo hebel halku ka soo jeeda loo yaqaano laakiin qiimaheegu ma aha inay kuwaas yihiin kuwa ugu xaq badan inuu xiriiriyo that's not necessary kuwa ugu xaq badan inaad xiriirisaa inay dhinaca hooyada ka soo jeedaan baa suuragal sidaa hooyadaba loo tilmaamay inaad xiriirisaa ay tahay marka taas macnaha markii dhinaca moogtay lagu yahay halbeega qabiilka lagu eego hadii la yiraahdo de marka waxay noqonaysaa falxumo weyn baa meeshaas iyo ka soo dhalayso qoyskii laftiisii baa burburaya waxa bari iga yaabisay inuu moogtay wiil muxuu ahay nin ay moogtay mala isku reerihiin wiilka dhinaciisa oo de isku moogtay wiilka isku qolay yihiin ayaa hooyadii isqabsadeen markaas uu de hooyadii u heeliyay oo moogtay ninkii la dagaalamay markaas suldaankii reerku intuu yimid wuxuu yiri islaanta reer hebel maxaad ugu dagaalamaysaa can you imagine bina falxumo ka weyn ma jirto oo bini aadam uu sameeyay ma jirto ninku haduu hooyadii u heelin waayo u heelin lahaa bini aadam marka waxa weeye bina qabiilku heerkaas uu ina gaarsiinaya muxuu ahaay marka la eego dhinaca bogtay blood relationska loo eego haddaan genetically u eego de aanu muxuu ahaay 50% 50% waxaan ka soo jeedaa un labada dhinac Soomaa aqoontu waa inay tahay bartaa biologically ani dhiigaygu wuxuu ka soo jeedaa markii hooyada iyo aabahay buu ka soo jeedaa marka lama dagaalami karo half of me mugtay nuskay anigu lama dagaalami karo balse diintii bay faraysaa inaan qaybta u badnaado xiriiriyo ayaa markaas muxuu ay faraysaa hadii dadku geeyaan bay ahaayeen ay kala guursadaan oo qoloba dhinac una ka guursatana sida misalada muxuu ahay si inuu deganahay waxa laga ilaa odaygii 7 ama 8 inuu reer ka soo jeeday hadii genetically dhinaca waligeeba ka soo jeedi jiray de 99% dhiigayga waa dhinacaas uu noqday marka maxaa qabiil hebel la igu tirin karaa maxay miisaan ka ahay markaas qabiil hebel marka waa falxumo weyn oo inkiraysa xaqaaqiq cilmigiina inkiraysa xiriirkii muxuu ahay diineed diintu ina fartayna xiriiraysa bulshadiina burburinaysa weey marka nacasnimo ka weyn iyo aqli ka falxunay in soo mari maayaan maleynay markaas hadaynu taa ka gudubno dhaas waa macna waa dhinacii muxuu ahaayay xiriirkii bulsho iyo moogtay dhalashadii iyo blood relationskii markaynu eegno hadaynu u gudubno hadana bini aadamku wax weeye the one neighborhood relations daris wadaag dadku daris wadaag bay noqdaan af Soomaali ku sheego malaha wax laga yaabaa in markuu qoray dhinacaas hadaynu af Soomaali ku sheegno dadku waxay noqonayaan un dir ama dun wadaag sama dadku waa dir wadaag dirku ma aabaha kaliya hatee waa intaad ka soo jeedo dhan weey intaad ka soo jeeday dhacaankaagu ka yimid bay noqonayaan taas markaas waa dirkaagi Soomaalidu waxa tiraahdaaba xagga macooyida iyo waxa saartaa waxa raadeen giir loo-aad iyo girid macooyo midna ma hadaan marka macooyida baan moogtay aanu dhinac u badanahay qofku ka soo jeedi kara marka waa in muxuu ahaay qofku waa intuu dir uu ka soo dirkiisu ka soo jeedo intay doonay ma noqotay tan iyo awooyaashii intii dhalay ama hooyooyinkii iyo dhinaca ka soo jeedaan intii dhashay kulay dhacaankiisu dhinacyadaas muhiimdi marka taas way noqon kara waana tan in la isku xiriiriyo ay tahay ee aanan muxuu ahaay aabaha kaliya hata loogu duleyn inta kale waxa kamid ah diye wadaago waxaan moogtay waa tolnimadii oo taasina qabiil kaliya hata maahe waxay noqon kartaa xiriir ay bulshadu dooratay oo qofku cid uu doonto uu la muxuu ahaa la bixiyo dhiiga ta kale waxaan muxuu ahaa waa dab ama daris wadaag Soomaalidu waxay tiraahdaa muxuu ahaa ama ab muxuu ahaa ama ood wadaagna way yiraahdaan Soomaalidu tiraahdaa moogtay oodi ab ka dhow oodi ab ka dhow baa leeyahay macnaha dariskaaguna de dabcan waxa waa qofkii kula deganaa weey qofkii kula deganaa ama gurigaagu isku xigay ama deegaanka isku xigay ama magaalada isku xigtay ama beertaad isku xigeen ama oodiin isku xigeen ama daaqsintaad isku tageyseen
intii muxuu ahaa nolosha aad ku maareynaysiin aad ku kulmaysiin baa deris ku noqonaya ama class ku kulma ama shaqo ku kulma ama meel kasta ku kulmee intii taas muxuu noqonaysaa un deriskaaga ayuu markaas muxuu ahaa u noqonaya marka deriskana sida loo adkeeyo waa si aad u weyn weey inaad ku xiriiriso bini aadamka oo Soomaalidu waxay tiraahdaa ma ogtahay daartaada waa dooran kartaa laakiin deriskaaga ma dooran kartid sama gurigaaga waad iibsan kartaa oo magaalada doontaad ka iibsanay laakiin deriskaaga macnaha adigu doorashadeeda ma lihid sama marka sida aanad adigu u dooranayn muxuu ahaa dirkaaga nina ma dooran dirkiisa sida aanad dirkaaga iyo dhalashadaada u dooran bana deriskaagana u dooranin marka muxuu ahaa deriskana in la ilaaliyo diinteena ay nafartay ciduu doonay ha noqday reer hebel ha noqdo iyadoon loo eegin reer xitaa iyadoon loo eegin diin iyadoon loo eegin يا درس كاغ إنك حرميسا أتكون خصبان تاي نبينا عليه الصلاة والسلام وكيلها جبريل وحو إلى الدردارمي سيدو إلى الدردارمي وحا موقتها يشارك إلالي يشارك حقوق دي سيقلا هدلي وحنم لي إنه موقتها دحل كي يبقى وليه إنك يشارك إليه عدو دوني بها هذا تاسان لي يقولي بعنا هاد يشير وحكو سو أروري أرما أدو وين وموقتها حقا محوها إن درس كي يشارك الله إلالي الله حرميو أي تاي هذا قبيلكم ما إلالي محوها أي محو درس قبيلكم ما إلى مية قبيلك يعني قبيلة ما إلى لسا محوها درسك عند أود درن دجال ما يسي محوها ميل والبع مقتهس محوها إسبابين يساي وأنت درسك هيدا ما مقتهي أما داخسين وداق هيدا ما مقته بيري كده حيس محوها إسكودا واوي لقي يابانا إنه إسكوديك بيهين أو إسدالين أيهين تاسين ويكو أود درن ميل والبصوم عليه دجال كسر عداي وأنت درسك هيدوي taasina markaa waa foolxumo weyn oo markaas ay qabyaaladu leedahay weey diinteena iyo tolnimaduna ay markaas muxuu ahaay ay muxuu aad uga horsoo horjeedo dabcan ka xigtaay waxa weey waa diin iyo dan wadaag dadku waa dan wadaag arrimahan ka soo hadalnay choice ma lahayn fiiriyay marka laga reebo tolnimada oo qofku ciduu diin la bixinayo isagu mugti choice-kiisa ahaa marka taa laga reebo dhalashaduna choice ma aha deris maxaa minaad cid deristaana inta badan choice ma aha oo iyada lafteedu waa limited aad bay u gaaban tahay marka choice-ki waxa weeyaan dadku inay dantooda isku darsadaan oo tala wadaag yihiin waxa la yiraahdaa moogtay dadku waa ab wadaag waa ood wadaag waa arrin wadaag weey marka ab wadaag iyo ood wadaag midna moogtay tala kuma lihid badan laakiin waxa tala ku leedahay sida u arrinsan lahayd dantaada uga hadli lahayd maxaa isku maamuli lahayd isku dhaqi lahayd meesha aqligu inuu ka shaqeeyo loo baahan yahay waa kaas aqligu inuu ku mashquulo ma aha abtirsiin aad waxba ka qaban karin adigu ana la weydiin haba yaraatee ina saad u dhalanaysi ciidaad ka dhalatay iyo meeshaad ka timiday nobody ask you cid ku weydiisay ma jirto marka taas waa something given wax lagu moogtay iska yaala weey natural ina taa moogtay qadar ilaahay buu ku yimid wax ka bedeshaana suuragal kuma adiga laakiin aad ku wareertaay waa inuu cid fool xumayso dad dulmi iyo aad moogtay ku galgalato may noqonaysaa laakiin inta muxuu aasaaskii wax weey in dadku siday dantooda uga wada tashan lahaayeen horumarkooda iyo nabadgelyadooda iyo wanaagooda si uga tashan lahaayeen halkaas u baahan aqligu inuu ka shaqeeyo oo garaadku shaqeeyo oo umadu ay muxuu ahay ka wada hawlgasho waxaan ku soo gabagabeynay aniga waqtigii muxuu ahay aad moodaynan muxuu ahay dhaafay waxaan ku soo gabagabeynayaa qabiilku ma qabyaalada aan iraahdee qabyaaladu waxay tirtiraysaa muxuu ahay roolkii ay hooyadu kulahayd muxuu ahay umada ama moogtay haweenku kulahaayeen ogaada oo haweenku wax weeyaan waa guntinta bulshooyinka isku xira hooyaa noqonaysa oo habriyara ka imanaysa oo muxuu ahay waxa ka imanaysa macooya ka imanaysa oo waxa ka imanaysa muxuu abtiba ka imanaya bulshada qaraabanimada ugu xoog badan hooyada iyo gabadha samaysa marka taa roolkeeda la lumiyo odaygu yiraahdo aniga kaliya soo mutaxanay aniga iyo moogtahay idaan ka soo tafiirmay kaliya uu cimaamada u qaato ceeb weyn baa ka imanaysa bulshada muxuu ahaa inteedii badnayd baa la ignore gareynaya laakiin halka naxariista iyo isku guntinta bulshooyinku ay ka dhalanaysaa waxa weeyaan waa hooyada iyo muxuu ahaa iyo haweenka weey taas baa maxay ka dhalanaysaa marka inaan fahamno xiriirinta riximka aanu halka ku soo gabagabeynaya muxuu ahaa waa inaan fahamnaa in xiriirka uu riximku leeyahay nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri man habba an yubsad lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah qofka jecel in cimrigiisa muxuu risqiisa loo ballaariyo cimrigiisana muxuu hadee uu mid barakooba u noqdo oo insa Allah fi athari raad wanaagsan uu ka hado qofka doonayay raximkiisa wanaajin raximka xariirinaysa ma aha awowga iyo intii ka tafiirsantay ma raximka ugu badan ee xiriirinaysa waa hooyada iyo intii ka timid weey
taas weeye muxuu ahaa ugu badan ee markaas aad xiriirinaysaa ina labada dhinacba inaad xiriiriso taa dhinacii xoogga lagu saaray inaad samayso laakiin qof dadku markay muxuu ahaa ay raximka xiriirin waayaan ay qaraabanimada fogeeyaan ay qabiilku uu moogtahay uu ay ku waashaan waxa dhacaya de waciidkan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka digay fahal asaytum an tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asamma wa a'ma absarahum waciidka ka adag ma jiro oo muxuu ahaa in la nacdalay cidii muxuu ahaayay allada fasahaadisay waxay noqonaysaa kuwa muxuu ahaa riximka gooyay bay noqonayaan kuwa riximka gooyay kuwaasay noqonayaan de kuwa fasaadka sameeyay riximka gooyayna waxa uu dambeynayso nacdal iyo moogtaayeen dhalaan iyo degalaan de waa aqligo la xidho halka sida amika aanu sheegnay muxuu ahaa bini'aadamku aqligiisa intuu iska xidho uu isagu is-iloobo oo qof fiiri qofka moogta isagii moogta qabiil baan la dagaalamayaa leh ee isaguna dhiiggiisa iyo DNNTC oo dhan ay moogtay qabiil ay umada ku baahsan tahay waa qof naftiisa dagaal ku haya way yaa ka foolxun markaas qof naftiisa la dagaalamayo way hadaan DNA analysis ku sameeyo aan bulshada dhan noqonayo anigu aan ku baahsanahay handana qabiil baan moogtay la dagaalamaya ayoon nacabahay leh waa qof horta moogtay suicide way nothing else wax kale ku macnayn karaa ma jiro waa just intixaar way taas bay noqonaysaa markaasoo qof naftiisa la dagaalamayo isagu wuxuu ka koobnaa la dagaalamayo ayuunbuu markaasi uu noqonaya marka kaasaan muxuu ahay ku soo gabagabeynaya xadiiska ugu dambeeya waxa weeye موت الرحم كمهم مثلا وموت وليه حديث القدسي أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته انظر مركز حديث قبل آدم في الصدى وإلهي سبحانه وتعالى أنه الرحمن بانا هاي مقعي أنا كسو شري رحمك ومعوها حلقاسان كسو ديجي مقع رحمك الرحمن بانا كسو ديجي مركز قفكي محوها حريرينا وان حريرينا qofkii gooyana waa qof la gooyo naxariista laga gooyay marka waciidada ku soo arooray aad buu badan yahay nabi cali saxays kale ilaahay qul jannata qati'ur rahim fiiriye jannada gali maayo qof qati'ur rahim markii diinteena sida ay nafarayso de waxa weeyaan inaga ay nolosheena ku hagaagayso inaynu isxiriirino waxa weeyaan inaynu aad u fahmnaa loo baahan yahay ilaahay khayrka hayna waafajiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh